saamaynta doorashadan ay ku yeelatay saami qaybsigii iyo sidii beelaha u soo kala baxayeen inagu mar dadku gobolay ku eegaan anigu laakiin gobolada un kuma eega ee xagga kalena waanu rogaayo reerahan eega sidee u saamaynaysa waayo waxaynu isugu haysanno saamigu waa reerade ee gobollo maaha arrintii gobollada wax iska beddelay ma jiro gobol walba intii uu lahaa buu helay intii tiro xildhibaan ahaadii ka soo baxi jirtayna way ka soo baxday wax isbeddelay waa reerahana miqyaaskaygu aniga wuxuu ka go'aa isaaq ama beesha dhexe iyo beelaha kale doorashadii 2005tii 25 xildhibaan bay heleen beelaha kale oo dhami halka 750na ay beesha dhexe heshay waxaan ahaa raggii ka halgami jiray ee saami qaybsiga lahaa website baa idinala socdade tanaa la galay 22 bay beelihii dhexe heleenoo beeshii dhexe 3 bay ku darsatay wax ka qaylinimaya maqasheen reer raascaanoodoo daba socdoo leh waar xaggee wax ayagii mareen iyo waana la dhacay miyaa maqasheen waayo su-aashaa jawaabteeda ayaa inoo sheegaysa sababta cidina u qaylin weyday raallina loogu wada noqday wixii dhacay sababtaasina waa saamaynta qof keliya oo musharaxiintii soo baxay ka mid ahaa oo la yidhaha Barkhad jaamac Batuun ninkaasaa cid walba ku qanciyey in ay saami qaybsiga reeraha aan reera uun u go'nayne laga qaadi karo oo waxaan qabyaalad ahayn la isku dooran karo oo weliba uu noqday xildhibaanka ugu codka badan 82ka macallaan dheereyaasheenii ayuu keligii la dheeran noqday anuu ninkaas waxaan qabaa wuxuu u hiiliyey inagu 20 kun cod baynu siiyey ama weliba dee wax cod uma siinay laakiin runtii wuxuu u hiiliyey beesha dhexe ninkaasaa u hiiliyey oo tusay inaanay iyaguna isdooran karin intay kuwooda ridaan inay Barkhad dooran karaan taasaa kalsooni ku abuurtay beelihii kale oo kalsoonidii siisay oo la inoogu qaylin waayo. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.